kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada warka xogta TV qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ugu dooroon ciidamo badan oo Itoobiyaan ah kana yimid degmada Doolow oo gaaray magaalada Luuq runbaa in ciidamada shabaab ka saari doonaan jubbooyinka xog ayaan idinkaga hayaa tirada ciidamadii ka goostay Jubbaland ee ku biiray dowladda oo hadlay shaaciyana qorshe yaab leh oo ay diideen nin shabaab ah oo qarax ku aasiyay duleedka Muqdisho oo ku geeriyooday qarax u aasiyay Cabdullaahi Sheekh Xasan oo weerar ku qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka webiga Shabeelle oo ku fatahay magaalada Buula Bardiya barakac ka bilowday magaaladaasi kulan lagu dalbanayay in la sii daayo roobo markale ka dhacay Muqdisho bannaanbax looga soo horjeeday madaxweyne Cagjar oo ka dhacay gobolka Soomaalida ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyr oo booqday Bardaale iyo khasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay Burkina Faso oo korortay hagaaga haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelina taariikhdu waxa ay tahay 10 bisha 11 sanadka 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal markaana gado wararka ka imaanaya gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegayay in ciidamo badan oo ka tirsan Itoobiya kana yimid degmada Doolow ay soo gaareen magaalada Luuq ee isla gobolkaas ciidamadan ayaa tiri ahaan lagu qiyaasay ilaa 300 oo askari waxaana ay wataan hubka noocyadiisa kala duwan iyo dabaabaadka dagaalka kuwooda aadka culus ciidamadan ayaa la sheegay inay tagistooda Luuq wax ka og tahay dowladda Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo waxaana saraakiil ciidan oo aan la hadalnay noo sheegay in tagista ciidamada Itoobiya Luuq ay tahay in gobolkaas iyo kanjoobada dhexe ay dhawaan ka bilaabaan howlgal culus oo shabaab looga saaray deegaanada ay ka joogaan labadani gobol dhawaan ayay ahayd markii askar badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku soo biireen ciidanka dowladda iyo ka soo goostay maamulka Axmed Madoobe waxaana dowlad goboleedka Jubbaland Itoobiya ay ku eedeysay inay ka dambeysay goosashada ciidamada iyo gaarista degmada Luuq ciidamadii ka goostay Jubbaland ee ku biiray dhanka dowladda Soomaaliya ayaa hadlay waxayna shaaciyeen qorshe cajiib ah ciidamadii maamulka Jubbaland ee ka tagay magaalada Balada Xaawo isla markaana gaaray Luuq ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah oo hadlay oo shaaca ka qaaday sababta ay u goosteen ciidamadan oo gaarayay ilaa 200 askari ayaa wararka aan horay u baahinay waxaan ku sheegnay ku biireen ciidamada militariga Soomaaliya Maxamed Cabdi Muude oo ah sargaal ka tirsan ciidamada ayaa xaqiijiyay inay qaateen go'aan ah in ay ka baxeen ciidamada Jubbaland kuna biiraan kuwa qaranka hadda kadib waxaa si toos ah oo hoostagayna dowladda dhexe hogaamiye madaxweyne Farmaajo markii ugu horeysayba waxaan ahayn ciidamada federaalka ka hor inta aan la aasaasin Jubbaland Maxamed Cabdi Muude oo wareysi mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka ay qaateen uu sabab u ahaa isfahmi waa soo dhex maray iyaga iyo maamulka Jubbaland ee hogaamiye Axmed Madoobe waxaan isku fahmi weynay qorshe ku saabsan in ciidamada joogay Balad Xaawo la geeyo dhinaca gobolka Waqooyi Bari Kenya annaguna waan ka soo horjeednay arrintaas waayo ma doonayno in marnaba dhinac noola wado oo aan ka shaqeyno waxaanan danahayn ayuu yiri sargaal Muude oo ciidankani hogaaminayay xogaan helna ayaa sheegayay in Axmed Madoobe oo markii hore uu ka shakiyay ciidankan balse uu isku dayay in uu u tallaabiyo dhanka Waqooyi Bari ee Kenya ee maamulaan ciidamada Kenya Axmed Madoobena taabacsan balse ciidamadan ayaa ka biyadiiday arrintaasi shirqoolka ahayd taa oo keentay in gebi ahaanba iskaga soo baxaan magaalada Balad Xaawo oo ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya nin ka tirsan dagaalamayaasha shabaab ayaa xalay ku geeriyooday wadada xiriirisa Muqdisho iyo Ceelasha kadib qarax uu halkaasi dhigay oo ku qarxay geerida ninkan ka mid ka ahaa amniyaadka Al-Shabaab ayaa timid kadib markii uu isku dayay inuu miino geliyo wadada xiriirisa deegaanada Weydow iyo Jaamacadda Shabeelle ee duleedka magaalada Muqdisho inta badan ay ka dhacaan qaraxyada lala eegtay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika AMISOM qaraxa kadib halka ay dhacdadu ka dhacday waxaa gaaray saraakiil ciidan oo ka tirsan booliska Soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii wadadaasi qarax lagula beegsaday saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM Al-Shabaab ayaa inta badan kordhiyay qaraxyada ay ku aasaan wadada xiriirisa Ceelasha iyo Muqdisho Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa weerar ku qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka
siyaasi Cabdulaahi Sheekh Xasan horeyna usoo noqday wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed haddana ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa weerar culus ku qaaday xisbiyada ku midoobay madasha xisbiyada qaran. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa sheegay inaan loogu yeeri karin xisbiyo qaran uu midoobay maadaama uu sheegay inaysan isku tegin guud ahaan xisbiyada dalka oo ku dhow 60 xisbi. Cabdulaahi Sheekh Xasan oo ka jawaabayay hadal uu maalin ka hor sheegay xildhibaan Cabdiqaadir Cusub loo ahaa in dadka Muqdisho lagu qasbin in ay u qaxaan ceelasha biyaha ayaa ku tilmaamay inuu ahaa hadal aan fiicneyn isla markaasna aysan hadda habbooneyn in dadka Muqdisho la qaxiyo. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa madaxdii hore ee dalka madaxweyne uga soo noqotay ku eedeeyay in iyagoo horey ugu soo tunteen dastuurka loogana baahan yahay inay marka hore cudurdaar ka bixiyaan kadibna ay dowladda hadda jirta ku dhaliilaan qaladaadka ay ka gelaysa dastuurka. Cabdulaahi ayaa la xasuustaa inuu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn u dhaliili jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya kana horreeyay madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud. Webiga Shabeelle ayaa degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan waxa uu ka sameeyay fatahaado hor leh. Fatahaadaha ayaa sababay in qaar ka mid ah dadkii ku noolaa xaafadaha magaalada Buulaberde ay iskaga barakacaan guryahooda. Xaafadaha uu sida weyn u saameeyay fatahaada ayaa ka mid ah xaafadaha Indhaceel, Bugabees iyo meelo ka mid ah Buulaberde. Sidoo kale daadad ka dhashay fatahaadan ayaa jaray wadooyin badan oo ka mid ah kuwa halbowlaha waa magaaladaasi. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Buulaberde oo ka hadlay saameynta uu ku yeeshay fatahaada webiga Shabeelle ayaa dowladda iyo Hiirshabelle ugu baaqay inay ka soo gaaraan dadka ku nool Buulaberde. Webiga Shabeelle ayaa horey fatahaad wuxuu ka sameeyay magaalooyin ka mid ah gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, haba ugu badnaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulan lagu dalbanayay in la sii daayo roob ayaa mar kale ka dhacay Muqdisho. Waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan lagu dalbanayay in la sii daayo gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale kulankaas ayaa loogu duceeyay dadkii ku dhintay banaanbaxyadii ka dhacay Baydhabo waqtigii ay dowladdu xirisay Mukhtaar Roobo. Waxaan ku baaqaynaa madaxda dowladda federaalka inay si degdeg ah xorriyadiisa u siiso musharax Sheekh Mukhtaar Roobo raaligelin buuxdana ka bixiyaan xadgudubkii ay ku sameeyeen shacabka Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale ugu baaqaynaa madaxda federaalka inaysan burburin rajada ummadda Soomaaliyeed ayna ka shaqeeyaan nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa in madaxda dowladda shacabku ka dhageystaan dhagana maqlaan baaqyada ka soo yeeraya. Mudaharaadyo ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Soomaalida. Dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa maalmihii la soo dhaafay ka socday deegaano kala duwan oo ka tirsan dowladda deegaanka Soomaalida. Banaanbaxyada ayaa looga caawinayaa caburin la sheegay maamulkiisa Mustafa Cagjar uu ku hayo shacabka dowladda deegaanka Soomaalida, gaar ahaan dadka kala duwan oo ra'yigooda iyo hadallo ay sheegeen dartood loogu xiray Jigjiga. Mudaharaadkii ugu dambeeyay ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay degmada Yucub, kaasi oo looga caabanayo kadib markii ciidamada New Booliska ay Jigjiga ku xireen nabadoonkii deegaankan. Odayga magaciisa lagu sheegay Muxudiin Xaaji Abiib ayaa xabsiga loo tixaabay kadib markii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida uu weydiiyay su'aal la xiriirta dhibaatada baasan iyo barakacinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada ku dhaqan deegaanka Cali Tulud. Waxaa marar kala duwan weerar culus iyo xasuuq ka qaystay maleeshiyaad ka tirsan qowmiyadda Oromada oo inta badan laayay bulshada Soomaaliyeed halkaasi degan, iyadoo arrintaasi wax muuqda uusan ka qaban Cagjar. Khasaaraha weerar ka dhacay dalka Burkina Faso ayaa korortay. Khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday gaadiid ay la socdeen dadka shaqeeya godadka macdanta laga qodo ee dalka Burkina Faso ayaa korortay. Dadkii ka badbaaday weerarkaas oo ka dhacay magaalo ku taala gobolka Borno ayaa sheegay in dabley hubeysan oo wata gaadiid ay rasaas oo uga qaadeen. Inta la xaqiijiyay dhimashada ayaa hadda maraysa ku dhawaad 50 ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda macdanta baarta ee dalka Canada laga leeyahay. Shaqaalaha la weeraray waxay la socdeen 3 bas waxayna u socdeen magaalo la yiraahdo Bungu oo ka tirsan gobolka Borno. Inkastoo mas'uuliyiinta dowladdu ay doonayeen tirada dhimashadu gaaraysa 40 ruux hase ahaatee dadka deegaanka weerarku ka dhacay ayaa sheegay inay arkeen dhimashada in ka badan 100 ruux. Dadka qaar ayaa raqdooda iyo ruuxdooda balalaayay ilaa hadda. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino.